kadib qaadista duulaanka loo bixiyey aargoosiga dhabta ah ee Iiraan waxay qaaday weeraro kala duwan. Taliska ugu weyn Mareykanku uu ku leeyahay bariga dhexe ee Qatar oo lagu dhuftay gantaalo qaybihiina ay ololeen sida laga arkayay saxaafadda, iyo sidoo kale weerarka markabka ugu weyn xambaara diyaaradaha ee Mareykanku leeyahay oo taagnaa badda Carabta oo Iiraan ay sheegtay inay 4 gantaal ku dhufatay saraakiil iyo ciidanna ay ku laysay. Mareykanka ugu dambeyn qirtay in 3 sarkaal oo sarsare kaga dhinteen halka 5 askarina kaga dhaawacmeen. Sidoo kale khasaare baaxad leh uu soo gaadhay markabkiisa. Israa'iil oo sheegtay in ilaa imika la laayay 20 qof oo godkii ay ku dhuumanayeen isgaadhsiintooda gooday, kuwaasoo loo badinayo inuu ku dumay godadkii dhulka hoose ee markan dadka Israa'iiliyiinta ay kaga gabanayeen gantaalaha ay soo tuurto dowladda Iiraan waxay sheegtay howlgalkani inuu yahay mid aargoosiya oo uu sidiisa u sii socon doono ilaa laga gaari doono yoolka ugu dambeeya ah in si dhaba loo aargoosto iyo in dharbaaxa kulul lagu dhufto kuwii soo weeraray gudaha Iiraan. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa hadlay, waxaanu sheegay aargoosiga inay mar kale qaadi doonaan si ay u aargoostaan kadib weeraro kaga tegay maanta geeska Tehraan oo muujiyay khasaare baaxad leh oo gaadhay gudaha Israa'iil. Iiraan waxa ay isku diyaaraysay abaabul adag oo ka culus kii hore sidii ay ballan qaaday maalintii shalay ahayd kadib xaqiijinta geeridii hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. Hogaamiye cusubna way dooratay oo ah ninkii ku xigay isaga kan oo noqonaya hogaamiyaha bedelaya ama se la wareegaya si ku meel gaadha kursiga. Waxaa loo badinayaa hogaamiyahani inta uu talada hayaa inay noqonayso inta uu sii socdo dagaalku, kadibna la dooran doono mid cusub. Weerarada Iiraan iyo weliba in taliska Iiraan weli sidiisii u kulul yahay ayaa Mareykanka cajab ku noqotay. Madaxweynaha Mareykanka oo hadlay, Trump ayaa sheegay inuu ku dhufan doono dhirbaaxa kulul oo ka xanuun badan tii hore haddii aanay joojinin weerarada. Waxa uu sheegay inuu aaminsanaa inuu istaagayo dagaalku mar haddii lasoo afjaro kuwa dhibay dadka Iiraan iyo dunidaba, oo uu la jeedo hogaamiyaashii sare ee kacaanka Iiraan ee shalay toole la laayay, tiradooduna gaadhaysay 5. Haddii aynu soo ururino, waa taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan, xogayihii arrimaha sirdoonka Iiraan, hogaamiyihii ugu sarreeyay kacaanka Iiraan, wasiirkii difaaca Iiraan. Shakhsiyaad muhiim u ah Iiraan ayaa shalay toole la dilay. Mareykankuna waxa uu aaminsanaa inuu dagaalku istaagayo. Iiraan se waxa ay markan sheegtay in aanu dagaalku istaagayn oo aanu ku istaagayn shakhsi iyo 2 shakhsi midkoodna ee uu sii socon doono. Geeska Iiraan waxaa maanta ka tegay weeraro adag oo qaarkood la eegtay dalalka khaliijka sida Qatar, Bahrain, Imaaraadka. Sidoo kalena waxaa la weeraray oo weerar adag lagu ekeeyey gudaha Israa'iil iyo maraakiibta diyaaradaha xambaarta ee taagan badda Carabta ee uu iska leeyahay Mareykanku, gaar ahaan markabkii ugu baaxadda weynaa oo uu dhowaan Mareykanku ereyada u soo dhaqaajiyey si uu duqeymo uga geysto gudaha Iiraan. Waxa ay Iiraan sheegtay guud ahaan hantida iyo weliba saraakiisha Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe saacadda laga bilaabo inay yihiin taargad iyo baabiinta ugu weyn ee Iiraan markan ay isku xil saari doonto. Howlgalkan inta uu socdona shaqada dowladda iyo wax kastaba istaageen oo jihada loo jeediyey markan sidii loo aargoosan lahaa iyo weliba sidii loo layn lahaa saraakiil kasta oo soo aasaastay ama se soo qorshaysay dilka hogaamiyihii kacaanka Iiraan oo la sheegay xilli uu ku sugnaa xafiiskiisa oo ay kula sugnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Iiraan sida taliyihii ciidanka kacaanka ilaalada Iiraan iyo dhammaan ragga kula dhintay shalay goobta ee saraakiisha sawiradooda iyo muuqaaladooda ugu dambeyn ay baahisay Iiraan ee qiratay dhimashadooda dhammaantood in la beegsaday xilli uu socday kulan qaran amase shir qaran oo lagaga arrinsanayo waxa laga yeelaya tallaabooyinka iyo goodiga Israa'iil iyo Mareykanka. Isla markaana uu ahaa weerar gaadma oo markan xogtiisa ay bixiyeen basaasiin dabagal ay ku hayso Iiraan. Marka Iiraan gudaheeda la joogo, basaasiinta iyo weliba sirdoonka adag ee lagu dhex samaystay ayaa mashaakil ku ah, taasoo sababaysa in lasoo afjaro si yarna loo laayo saraakiisha iyo madaxda ugu sarreysa Iiraan, maadaama la helayo xogta dhaqdhaqaaqooda iyo halka ay ku sugan yihiin. Tehraanse waxa ay sheegtay taasi inay noqon doonto quusta ugu dambeysa ee Mareykanka iyo xulafadiisu oo ay kaga quustaan gudaha Iiraan oo ay mar dambe soo farageliyaan. Sidoo kalena Iiraan ay dardar gelinayso hubkeeda nukliyeerka. Dowlado kala duwan oo uu ka mid yahay Ruushka, Kuuriyada Waqooyi, Chinaha waxa ay garab istaageen geeska Iiraan. Marka aynu ka hadlayno dhanka taageerada
hadalkaa way garab istaageen balse dhan ficilo weli lagama hayo marka la eego inaanay dagaalka qayb ka ahayn amase si toos ah u caawinaynin ilaalada kacaanka Iiraan iyo dowladda Iiraan howlgalkeedan aargoosiga dhabka oo lagaga jawaabayo howlgalkii shalay Israa'iil iyo Mareykanku sida wadajirka ay ugu bixiyeen aarka guuxa amase libaaxa gurxamaya amase guuxaya oo nuxur ahaan ahaa inay laayaan saraakiisha ugu sarreysa kacaanka Iiraan. Kumanaan dad oo reer Iiraan ayaa iyaguna sidoo kale isugu soo baxay magaalada Tehraan si ay u xusaan markan baroordiiqna ugu sameeyaan hogaamiyahoodii la khaarajiyay Ayatollah Ali Khamenei. Dalka Ciraaqna waxaa ka dhacay isku soo bax weyn oo ay dhigeen dadka Shiicada isku dhac booliska Ciraaq iyo waxaa dhacay sidoo kale dadka Shiicada ugu dambeynna halkaa waxaa ka dhashay khasaare. Consuliyadda Karachi uu ku leeyahay Mareykankuna waxa weeraray dad Shiica oo gudaha u galay oo gubay inkastoo isku day badan ay sameysay dowladdu iyo la xakameeyo ugu dambeynna ay ku guuleysatay balse waxa uu suuro gashay dadkaas gadoodsanay inay gubaan ama si ololiyaan fiyaaradda hore ee qunsuliyadda tan oo muujinaysa gadoodka dadka Shiicada. Waxa uu sheegay madaxweynaha Iiraan ee talada haya in loo argoyn doono sidoo kale tani tahay taabashada masiir adag oo nin kasta oo taabtay uu ka shalayn doono. Iiraan waxay sheegtay howlgalka kuwii bilaabay inay lahaayeen awooddii ay ku bilaabeen balse dhammaadka iyo awooddeeda ay leedahay Iiraan lana dhammayn doono howlgalkan kadib marka loo arko in la aargoostay. Mareykanku waxa uu qirtay in saraakiil laga laayay Israa'iil waxay qiratay in dad shacab ah oo ku dhuumanayay godadka hoostooda la laayay sidoo kale khasaarad baaxad leh loo geystay warshadda sifaysa shidaalka ee gudaha Israa'iil sidaa darteed ay u jawaabi doonto si adag iyaduna. Markan waxaa la filan karaa dagaalku inuu sii socdo oo dhan waliba dhanka kale waxa uu imanka u arkaa inuu yahay dulmane iyo inuu ka aargoosto inkastoo Iiraan ay gaadhay dhirbaaxo xanuun kulul maadaama la dilay kacaanka raggii ugu sarreeyay sidoo kalena weeraro adag lagu ekeeyay maalintii shalay ahayd xilli qorshuhu ahaa mid waan iyo wada hadal ku socday. Marka la eego hanjabaadaha Mareykanka ka tegayay waxay ahaayeen kuwo muujinayay inay saacad walba dhici karto balse basaasiinta Mareykanka ee gudaha Iiraan ayaa u sahlay tallaabo kastoo ay qaadayaan ciidamada Mareykanka iyo xulafadoodu inay gaadhaan amase gudaha u galaan qorshayaasha dihan amase dadan ee dalkaas waana ta suuro gelisay in la laayo saraakiishii ugu sarreysay. Markabka Mareykanka ee maanta la weeraray ayaa isaguna muujiyay inuu yahay tallaabo kale oo argoos iyo dhirbaaxadiisuna kulushahay oo ku dhacday Mareykanka. Iiraanna waxay sheegtay howlgalku inuu sii socon doono. Dagaalkan ayaa la filanayaa inuu kasii muddo iyo waqti dheeraado. Kooxda Xuutiyiintu waxa ay kan kasashay amase ka xidhay oo ay u diiday maraakiibta Mareykanka iyo Israa'iil inay maraan Baabul Mandab iyo Badda Cas labadaba iyagoo sheegay inuu kan yahay howlgal adag oo loogu argoynayo dilka hogaamiyihii muslimiinta Shiicada iyo weliba ninkii ugu sarreeyay kacaanka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ilaa ninka loo argooyo oo weliba dagaalku dhammaadana aanay suuragal ahayn in isku socodkaasi socdo. Sidoo kale waxa gaab galay marinka Hormuz oo Iiraan ay hadda ku bilowday inuu noqdo mid isku bedela dunida foodada ololka iyo qaaca iyo dagaalka. Gees kastaba Iiraan waxay u tuuraysaa gantaaladeeda waxaanay sheegtay 10 sano ee soo socda haddii weeraradu min maalin socdaan inay haysato maalin kasta gantaalihii ay ku howlgalaysay sidoo kalena maalin walba inta ay riddo afarlaabkeeda ay soo saarayaan warshadaheeda markan loo diyaariyay dagaaladan iyo weliba inay soo saaraan wixii lagu howlgeli lahaa. Waxay sheegtay Iiraan inay si dhab ah ugu argoyn doonto hogaamiyaheeda. Mareykanku iyo Israa'iilba waxay si wadajir ah u sheegeen in sidii ay u maleynayeen wax noqon waayeen sidaa darteed lagu qasban yahay mar labaad in gacanta loo qaado Iiraan. Waa sida bayaan ay ku soo wada saareen Aqalka Cad iyo Israa'iil.